calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalka GMTech. Magacayga waa Jaaf Maxamed. Saaxiibayaal soo dhawaada. Maadaama aan muddo bil aan kala maqnayn muuqaalna aan soo dhigeen asxaabta taas waan idin kala dhignay caqabada jira awgooda maadaama imtixaamo iyo problemo kale iyo waxyaabo mashquulkayga u fara batay sidaa daraaddeed aan usoo dhigi waa asxaabta karaal noqda. Waxaan rabaa halkan ugu mahadceliyo dhammaan asxaabta janaalkan soo flow gareeda oo ka gaarsiiyeen ilaa iyo dhowr kun ilaa iyo dhowr boqol oo subscribe aad iyo mahadsantihiin sida quruxda badan aad ila socoteen videodan like saarteen aad iyo mahadsantihiin. Waxaan rabaa muuqaal gaaban caawin idin duubo kulley aniga haweeney tahay haddii maalin kuu tahay haddii habeen kuu tahay waxaan kaa codsanaynaa muuqaal kala saarto asxaabtaadan oo share gareedo. Ugu horreyn applicationkan caaw idin haayo Android waaye laakiin qof walba wuu isticmaali karaa applicationkan. Waa haddii aan fursad ama haddii aan ku siiyo sharaxaad guud aan kaa siiyo applicationkan wuxuu anfici doonaa qof walba. Yani haddii uu qof ku soo waco kale tusaale oo lambarada garanayn ku soo waco sida aad ogaan lahayd laftaas qof iska leh sida aad ogaan lahayd casharkan ku saabsan yahay guud ahaan applicationka. Waxaan isticmaali doonaa hal application oo la yiraahdo Wi-Fi. Asxaabta u jeedaan applicationka waxaa la yiraahdo Wi-Fi marka inta ay ku yaalaa haddii aad u baahan tahay description ay kala dhigi doontaa aniga aan kuu soo dhigi doono. Applicationkan Wi-Fi ayaa la yiraahdaa Play Store ka ugu qortana heli doontaa. Haddaad caadigan linkiga aniga hoos ugu dhigi doono. Ugu horreyn applicationkan qad ayuu u baahan yahay qad ayaa soo furi doontaa. Midda labaad waxay tahay applicationka markii aad qad u daaftid registration ay mar doono aad diiwaan gali doontaa. Aniga hadda ayaan ku tusi doona qaabka iska diiwaan gelinayo marka aniga horaan u isticmaalay clean data ayaan dhahay markaan waa new sida lagu soo dejiyo kaleeto waaye marka qaabkan marayo waa in aad martaa marka. Ugu horreyn applicationka waxaa lafta aad ku isticmaali karto waa laf subnet laf hormuud lambar kale haddaad gelisay yani inaad ogaato aragtid ma ogaan kartid sida aniga aan tijaabiyey subnet iyo hormuud waan ka hubaa laakiin somtel aniga ma hubo laakiin haddii aad adiga waa tijaabin kartaa waa fiirin kartaa hadduu kusoo baxayo marka labadaas waan ka hubaa laakiin somtel waa fiiri waa isoo bixi waa iska dhaafay marka labadaas ayuu ku shaqeyn doonaa insha Allah. Applicationka haddii aan open dhaho open ayaan dhihi doonaa applicationka open markaan dhaho sign in meesha ku qortay ayaa taaban doontaa allow ayaa dhihi doontaa kadib allow ayaa dhihi doontaa haddana allow ayaa dhihi doontaa. Marka asxaabta marka allow dhaadeed luqadaada way ku jirtaa hooyo Soomaali ayaa ka dooran doontaa kadib hubi ayaa dhihi doontaa. Marka halkan markaad lambarkaaga ayaad gelin doontaa lambarkaad ku isticmaalaysa ayaa gelin doontaa halkan lambarka ayaan gelin doonaa hadda lambarkii waan ka qarin doonaa. Lambarka markay gelisid dhan ayaa dhihi doontaa hubi ayaa dhihi doontaa. Lambarka markii aad gelisid waa si fudud lambarka markay gelisid si automatic ani ugu soo gala laakiin adiga wuxuu ku weydiin doonaa maadaama aad ku cusub tahay verification ayuu ku weydiin doonaa code ayuu kuu soo diri doonaa codekaas ayaa gelinaysaa kadib ayuu meeshan ku keeni doonaa continue ayaa leedahay allow ayaa dhihi doontaa halkaas. Meesha aniga aan rabno meeshan waaye asxaabta meesha ay ku qoran tahay xisaabta oo ujeedaan meesha xisaabta ay ku qoran tahay halkaas ayaa daawan doontaa. Halkaas markii aad taabatid meeshan waxaad geli doontaa pinkaaga EVC-ga maadaama laftaada hormuudka ama subnetka halkaas aad sign in ku soo sameysay halkaas aad soo gelisay halkaas yani lambarka aad soo gelinaysa ugu horreyn passwordkiisa oo hadduu yahay jeeb hadduu yahay hormuud halkaas ayaa geli doontaa. Inaad fahantay ayaan malaynaya la soco pinka ayaa gelin doonaa dhan ayaa dhihi doonaa dan markii aan dhaho halkan waxaa ii diri doonaa notification verification account ii diri doonaa verificationka ayaa geli doonaa asxaabta verificationka ayaa soo dhici doono verification markii soo dhaco gelin doonaa. Okay kaliya waa intaas afartaas lambar waaye markaa gelisid oo ujeedaan meesha aniga noqosay halkan waaye asxaabta lacag diridda meesha ku qoran tahay halkaas ayaa taaban doonaa. Halkaas markaad taabatid EVC ayaa ka dooran doontaa asxaabta EVC markaad ka dooratid halkan ayaa gelin doontaa halkan meeshan halkaas ayaa gelin doontaa lambarka aad rabtid inaad ogaatid magac ku qoran. Tusaale hadda lambarkayga subnetka ayaan fiirin doonaa lambarka subnet iyo hormuud waa gelin kartaa laakiin lambar kale ma sheegi karo inuu ku shaqeyn doono adiga laakiin aniga ima shaqeyn adiga laakiin uu ku shaqeyn doono fiiri. Yani verify ayaa dhihi doontaa halkan markaad taabatid verify ayaa dhihi doontaa
oo jeedaan asxaabta aniga magacayga igu soo qabtay jaamaca maxirsa ay qoran laftaan waa lambarkayga subnetka marka asxaabta aan ku soo qori doonaa marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan dad qaarna oo anfici doono waddo kalena way jirtaa oo la maraayo oo subnetka oo iyadana waa taqaaniin inaan rajeynayo laakiin wadadan waa waddo isleeyahay dadka qaarna ka saayaan laga yaabo dad qaarna aqoon marka inta aan aqoon ka faa'iideysta muuqaalkan like saar aad ay umahadsantihiin asxaabtiin u share garaya muuqaalkan muuqaalka xiga aan ku kulmi doono waxaan ka tagayaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.